su-aasha 16aad oo ah su-aalaha ugu faafitaanka badan ee islaamka laga qabo waxay tahay maxay buu islaamku u dulmiyaa dumarka marka la joogo xagga dhaxalka oo loo siiyaa ninku wuxuu qaadanayo kala badh maxay bay gabadhu marka islaamka la joogo u qaadanaysaa ninku wuxuu qaadanayo kala badhkii waxay leeyihiin sidaasi cadaalad maaha marka dumarka loo eego su-aashan waxay ka mid tahay su-aalaha ugu faafitaanka badan islaamka laga faafiyey isla markaana khaladka ah qur-aanka kariimka ah wuxuu dhaxalka kaga hadlay meelo kala duwan suuratul baqara suurada 2 aayada 180 suuratul baqara suurada 2 aayada 240 suuratul nisaa suurada 4 aayadka 7 ilaa 9 suuratul nisaa suurada 4 aayada 19 suuratul nisaa suurada 4 aayada 33 suuratul maa'ida suurada 5 aayadka 206 ilaa 208 dhaxalka qur-aanka waxa lagu sheegay meelo kala duwan laakiin sagoo daqiiqa waxa laga warramay suuratul nisaa suurada 4 aayadka 12 ilaa 12 suuratul nisaa suurada 4 aayada 167 Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu quraan ku leeyahay suuratu nisaa suurada 4 aayada 12 Ilaahay wuxuu dardaarmayaa awlaadiina inuu leeyahay kalabka ah laba dumar dheefto hadii ay yihiin dumar qurax kana badan laba waxay leeyihiin saddex meelood oo laba meel waxaad ka tagteen hadii ay tahay gabadh qurax waxay leedahay kala badh dhaxalka hadii ay wax tushur kaga furan yihiin guriga tagdibna soo qabso kitaabka quraanka kala fur kana badh hadii aad fahmin carabiyada xaqrida tarjumada lagu turjumay quraanka suuratu nisaa suurada 4 aayadka 11 ilaa 12 xaaladka qaarkood gabadhu waxay qaadanaysaa ninku xooluhu qaato wax ka badan sida marka ay dhimato gabadh la qabo kana tagto saygeeda aabaheed iyo hooyadeed saygeedu wuxuu qaadanayaa walihii oo meelood oo meel iyaduna waxay qaadanaysaa 3 qayb marka loo qaybiyo meel aabaheedna wuxuu qaadanayaa 6 meelood marka loo qaybiyo 6 meel waxaan aragtaa inay ka badan yihiin hooyadu qaadatay xoolaha aabahu qaatay Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ga cadaalada iyagoo dhan uu cadaalad sameeyaa Allah quraanku wuxuu ku leeyahay suuratu nisaa suurada 4 aayada 4 Ilaahay marna ka dhicimayso wax quraan jaleeg oo dulmi ah hadafka uu ka lahaa alle sodrista nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ma inuu dadka dhan islaamka galiyaba walaalku wuxuu weydiiyay su'aal hadafka nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ma inuu dadka dhan islaamka galiyaba ujeedada laga leeyahay rasuul kasta marka laga soo dirayo xagga alle subhanahu wa ta'ala inuu diinta faafiyo alle quraanka wuxuu ku leeyahay suuratul anbiya suurada 27 aayada 107 wama arsalnaaka illa rahmatan lil alamin nabi muhammadow kuma aanan dirin mooyaane inaad dadka u tahay رحمت الله سعد قرآن كوحو قول لي سورة السبع سورة الصدني أفراد آيات 26 وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا والنذيرا نبي محمد كما نندرين وياني نادت كودان تهي ميدو بشارين أياه وغانا ديقى عذاب كالله إذن رسول كستوحو يمي سيئو أقوتو سالة الإسلام نبي محمد صلى الله عليه وسلم ورسوشا كي udambeeyay mana soo dirin carab oo kaliya waxa loo soo diray dadko dhan wuxuu yimi si uu gaarsiyo risaalada dadko dhan waxaan rajaynayaa inaan ka jawaabay su'aasha walaalkay waxa jira dacayaad oranaya Muhammad sallallahu alayhi wasallam wuxuu quraanka ka bartay waraqa ibn Nawfal wuxuu ahaa Khadiija radiyallahu anha in adeerkeed sidaan taariikhda ku baranay nabiga sallallahu alayhi wasallam lama uusan kulmin waraqa marka laga reebo lama mar oo kaliya marka hore waxa ahayd nabinimada ka hor nabigu wuxuu alle ku cabi jiray kacbada agteeda halkaas ayuuna kula kulmay marka labaadna waxa ahayd markii uu horeysay ee uu Jibriil ku soo degay nabiga marka nabigu waxa sallallahu alayhi wasallam mid baqanaya oo gariiraya kadib waxa ka haysay Khadiija waxayna u geysay waraqa وانا مركي ودنبيسي مركني مركو وحيغا نبي كسو دغي صلى الله عليه وسلم كدب ورقه ما اوسينولين مرك laga reebo 3 sano kadibna wuu dhintay quraanka soo degdiis waxay socotay 20 sano iyo bad sidee nabiga suuragal ugu tahay sallallahu alayhi wasallam inuu waraqa ka qaato quraanka isagoo 2 goor kaliya kadibna dhintay markuu waxigu socday 3 sano aha suuragal inuu nabigu ka qaatay waraqa quraanka oo ahaa qof carbeed rumeeyeen nasraaniyada nabigana marna suuragal ma aha inuu iyaga wax ka bartay